Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan saaxiibadeyda kusoo dhawaada mar kale iyo Fantasy Premier League. Waxaan ahay Daar Cabdulla Cali. Fantasy sanadkan xiise gaar ah ayuu leeyahay. Waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaabaha cusub ee sanadkan laga bedelay sharciyada fantasiga iyo xiisaha gaarka ah ee sanadkan uu leeyahay. Qof walba wuu ogyahay Premier League waa horyaalka ugu caansan adduunyada. Sanadkanna weeraryahanno markii la dhaho weeraryahanada hadda adduunyada ugu kulul badankood Premier League iskugu imaanayaan. Waxaan ogeyn Mohamed Salah oo Liverpool hogaaminaya. Liverpool hadda waxay kusoo darsatay Ekitike. Waxay sidoo kale rabtaa Isak oo aan ognahay wacdarihii xilli ciyaareedka la soo dhaafo u dhigay dhinaca Chelsea oo si fiican isku adkaysay. Man City Haaland iyo aan ognahay Pep waxyaabaha uu qabtay. Arsenal lafteeda waxaa mashaariiro oo Gyökeres ay keensadeen sanadkan. Waxaana la filayaa in ciyaaryahanno intii hadda la dhihi karo ugu xiisaha badneed adduunyada weeraryahanada marka la dhaho. Shasko ka mid ah oo Manchester United ay keensatay. Cunha oo Wolves sanadkii hore performance fiican ka sameeyay. Sidoo kale Mbeumo oo Brentford performance ka sameeyay keensadeen Manchester United. Marka kooxaha waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka kulligood weerarkooda waa fadhiyaa. Marka horyaalka sidaas ah ayaa fantasigiisu sanadkan xiise gaar ayuu leeyahay. Waxaan isla fiirinaynaa sharciyada cusub ee la isdhihi karo sanadkan fantasigu xiise gaar ayay u yeeli karaan. Horta aan isla fiirino qeybaha price-ka oo sanad walba xilli ciyaareedka markuu bilaabanayo price reveal la sameynayo. Sanadkanna Mohamed Salah ayaa noqday ciyaaryahanka ugu qaalisan maadaama uu xilli ciyaareedka la soo dhaafay uu qaab ciyaareed fiican soo bandhigay. Ninkii ugu dhibcaha badnaa ama ugu qiimaha badnaa ee sanadkii la soo dhaafay Haaland sanadkan hal baa laga reebay. Markii hore 15 ahaa xilli ciyaareedka hore. Sanadkan 14 ayaa laga dhigay qiimihiisa. Mohamed Salah oo 14 iyo bar ah unbaa ka horeeya. Meelaha kale difaacyada badankood 6 lagu soo saaray. Weeraryahanada hadda Gyökeres oo kale 9 waaye. Shasko oo kale 7.5 waaye. Markii la dhaho qiimaha labadaas ugu weyn waa Haaland iyo Mohamed Salah iyo sida maamulayaasha isku beeqaamin doonaan micnaha qiimaha haystaan boqolka ah iyo sida ay labadaas nin isku keenaan way adkaan doontaa. Laakiin in labadooduba hal koox ku haysto way adkaan doontaa. Haddii aan fiiriyo waxyaabaha ugu waaweyn ee sanadkan wax laga bedelo waxaa ka mid ah chipska ama jibaarada. Sanadkan 2025-2026 jibaarada waxay noqon doonaan laba qayb ay noqon doonaan oo waagi hore wildcard oo kaliya ayaa 2 jeer soo laaban jiray. Laakiin hadda jibaarada oo dhan way soo wada laabanayaan. Bench boost, triple captain iyo free hit intaba way soo laabanayaan. Xilli ciyaareed qaybtiisa horena waad heli kartaa oo inta la gaarin xilli ciyaareed cusub ciyaareedka 19aad chipka u horeeya ayaad isticmaali kartaa. Kadibna qaybta labaad xilli ciyaareedka marka uu game week 20 uu marayo waxaad ciyaari kartaa inta kale chipska. Sidoo kale waxaa xusid mudan in meesha laga saaray assistant managership oo ahaa jibaar la soo saaray xilli ciyaareedkii hore qaybtiisa dambe kaasoo maamulayaasha ay tababaro soo iibsanayeen 3 kulan kadibna dhibcaha loogu dari jiray. Sanadkan meesha laga saaray oo sharciyada cusub ee sanadkan la soo kordhiyay ka mid yahay maadaama maamulayaasha intooda badan aysan ku qancin oo ay dhaheen xiisihii iyo xamaasadii fantasiga ayuu hoos u dhigayaa sababtoo ah yani wax cusub oo yani aan lala qabsan karin waayo sanadkan waa laga soo reebay. Sidoo kale sanadkan waxyaabaha wax laga bedelo waxaa ka mid ah doorka difaacashada iyo saameynta ay leedahay oo aan ognahay inay tahay wax muhiim ah marka koox difaaceedu adag yahay iyo sida ay dhibco u sameyn karaan. Markii aan fiirina xataa hadda ka hor waa tii Jose Mourinho dhihi jiray in daafaca uu kugu caawin karo in aad ku guuleysato horyaalka. Marka sidaas darteed FPL-ka sanadkan waxaa lagu soo kordhiyay muhiimadda ka qayb qaadashada difaaca kooxda. Haddii aad tahay difaac iyo haddii aad tahay qad dhexe iyo haddii aad tahay forward. Marka ciyaaryahan kasta oo difaac ah haddii uu ka qayb qaato 10
door oo muhiim ah sida inuu tackle sameeyo, inuu interception uu sameeyo, inuu clearance uu sameeyo. Waxaa qiimo gaar ah lagu samayn doonaa oo dhibco dheeraad ah loo xisaabi doonaa. Haddii uu qad dhexe yahay tusaale ahaan oo intaasoo muhiim ah uu sameeyo, asna 12 ayaa loo xisaabi doonaa. Sidoo kale qadka dhexe iyo forwardka waa same. Marka taasaa lagu soo diray sanadkan oo doorka difaacashada inay muhiim tahay oo dhibco dheeraadana lagu heli doono. Tusaale ahaan xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay oo kale haddii la xisaabi lahaa doorarkan aan ka sheekeynay, ciyaaryahanka Tarkowski ayaa noqon lahaa ciyaaryahanka ugu dhibco badan oo 44 dhibcood ka helay dhankaas. Caicedo ayaa noqon lahaa qadka dhexe oo ugu badan sidoo kale oo 42 dhibcood ka heli lahaa. Ninka saddexaad ee ugu badnaan lahaana wuxuu noqon lahaa Murillo oo ka tirsan kooxda Nottingham Forest. Marka sanadkan maamulayaasha dhibco dheeraad ah ayay ka heli doonaan doorkan. Sidoo kale waxaa laga bedelay qaabka tiriska dhibcaha dheeraadka ah oo iyadana lagu soo kordhiyey in maadaama defensive contribution-ka gaar loo xisaabi doono, waxyaabo badan oo muhiim ah ayaa si gaar ah loo fiirin doonaa oo sanadkanna sida waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo penalty save-ka iyo qaababkii loo tirin jiray oo bonus points-ka badanaa waxaa laga fiiriyaa ciyaaryahanka dhibcaha dheeraadka ah 3 dhibcood ku guuleysan doono iyo sida loogu tirin doono. Marka taas ayaa iyadana wax laga bedelay oo sanadkan isbedelo badan ayaa laga arki doonaa halkaas oo ciyaaryahanno kala duwan ayaa dhibco dheeraad heli doona. Sanadkanna waxyaabo cusub ayaa looga tashan doonaa. Waxaa sidoo kale wax laga bedelay caawinta fantasy-ga oo inta badan arki jirnay in caawin loo qoro oo yani ciyaaryahan oo sida caadiga assist aan sameynin aad ku aragto in fantasy assist lagu qoray sababtoo ah baas uu soo dhiibay ayaa difaac ku dhacay kadibna saas lagu bixiyay ama saas lagu dhaliyay. Taasoo badanaa wax loo qori jiray. Laakiin mararka qaarna waxaa dhacdo in ciyaaryahan cross soo dhigay kadib difaac ku soo dhacdo aan assist loo qorin. Taas sanadkan waxbaa laga bedelay. Tusaale ahaan goolkii Bernardo Silva uu dhaliyay Marmoush uu soo dhigay xilli ciyaareedkii hore. Crosska markuu Marmoush soo dhigay oo Bernardo Silva uu dhalinayo, difaac dhexda waxoogaa taabasheer ku sameynayo. Marka fantasy-ga ama FPL scout-ka waxay sameeyeen, waxay dhaheen caawintaas waa none oo sida aad ka arkaysid sawirka. Laakiin sanadkan caawinada noocaas oo kale ah waxaa loo qori doonaa qofka markaas baaska soo sameeyay. Waxaan arki doonaa caawin badan oo dhankaas laga helo. Almuhim sanadkan dhanka dhibcaha ama helitaanka dhibcaha wuu ka duwan yahay sidii hore oo waxaan heli doonaa fursado badan oo dhibco lagu sameyn karo. Ugu dambeyntiina waxaa la soo kordhiyey suuq kala iibsi oo u gaar ah ciyaaryahanada aadi doono African Cup of Nations oo sanadkan soo socda la ciyaari doono. Taasoo iyadana fursad kale ah maadaama isbuuc ciyaareedka 16aad waaye markii la aadi doono. Isbuuc ciyaareedkaas inta badan waxaa la arki jiray markii oo AFCON la aado in transfer yani xaaladda ay adkaan jirtay maadaama ciyaaryahanada sida Mohamed Salah oo kale 14.5 waaye inaad iibiso waxay kugu qaadanaysaa inaad 2 bedel ama 3 bedel aad ka samirtid. Marka taas darteed fantasy-ga waxaa lagu soo kordhiyey bedelo dheeraad ah oo qofka markaas uu ka faa'iideysan karo oo sanadkan iyadana noqon doonto fursad kale iyo xiiso iyo xamaasad kale oo sanadkan fantasy uu leeyahay. Intaasoo kusoo koobaya saaxiibayaal sanadkanna waxaan rajeynayaa inaan isla joogno oo anna waxaan sameyn doonaa inaan waxyaaba ugu muhiimsan iyo isbuuc ciyaareedyada kala duwan iyo meelaha la fiirin karo inaan wax ka sameeyo sanad cusub iyo Fantasy Premier League 2025-2026 iyo annagoo hadii mar kale ka wada sheekeynay xiisaha sanadka soo socda hadduu Alla idmo. Sidoo kale liiga FPL Soomaaliya haddii aadan hore ugu jirin linkigiisa halkaan soo dhigi doona. Sidoo kale intuusan Premier League bilaabanin ku soo biir head to head-ka liiga FPL. Aad iyo mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.